السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء قنصر الله أكاديمي ما أنت وحين قارن دونا وإنه هكذا يدكسو جد بين دونا عشرات حنا وأنو تلاقي لي إنه قف كفاية يستوسو هروج مريو لغة ديسة إنجليزي كذا كهذا الك عشرات حنا أو سي شوكتا أو قبل دونا ويمكن حكي طبيعة الله سبحانه وتعالى عشان كأنه كمان ما أنت وحين قارن دونا 10 ways to say hello and goodbye طبعا قاب وعادو أوران كرتو qofka aad u salaami karto una macasalaamin karto oo markaad ka tigayso ama aad kala tigaysaan aad u sii nabadgeliyeen karto ayaynu ku dhiganaynaa maanta cashirkeenan oo luqadda Ingiriisiga aad ku salaami karto kuna macasalaamin karto qofka waxaan ujeedada aanu ka leenahay ama aan ugu talagalay markaa waxa weeye inuu qofku luqadiisa Ingiriisiga dhanka hadalka uu kor u qaado oo uu horumariyo xoojiyana waayahay aynu galato koowaad oo ah hello بقف كورن كرتا ما قفك ساركتان أما أسك صور بحضان أما با وجوه الرئيسيات كلنتان حد كورن كرتا hello أما ضد فربضان هذا أما قفها هذا وتكورن كرتا واستعمال كرتا ومد كم إذا قابك ضدك وصلامي كرتو اللغة الإنجليزية وحصلوا كلورن كرتا كنا لو هذين وقال له هاي hello أنت صار واستعمال كرتا كنا استعمال هذين وقال له أو informal لا وإنه شيء جدنا وإحنا نقول شيء informal hey baad sidoo kale oran kartaa hey baad ku oran kartaa qofka oo iyadana aad u isticmaali kartaa inaad qofka ku salaanto ama dadka aad ku salaanto waxaan sidoo kale aan isticmaali karnaa ama aan oran karnaa qofka markaan la kulanno ama aan dadka la kulanno hi there aan oran karnaa teena shanaad oo iyaduna informal ah ayaynu iyadana isticmaali karnaa markaan doonayno dadka inaynu salaanno oo waxaan oran karnaa howdy iyadana waa informal marka saad aragtaan salaamihii shanta ahaa in soo aragnay waxaanu kala qaybinay informal iyo qaar aynu sidooda u isticmaalay informal iyo formal baa loo qaybiyaa marka greetingska ama helloska sida dadka loo salaamo formal waxa loogu talagalay dadka aad ixtiraamayso ama muhiimka sida booskaaga shaqaalaha oo kale sida qof title sare leh oo maayirka magaalada oo kale ama qof aad ixtiraam ugu hayso laakiin informalka waxaanu isticmaalaynaa kuwa dadka aynu simanahay sida asxaabteena oo kale dadka aynu isku cusubnahay hore aynu isu galanayn dadkan wadada iskaga hor nimaadno kuwaas aynu isticmaalayna haddaynu u nimaadno how to say goodbye sida qofka loo macasalaameeyo ama loo nabadgeliyaa oo nabadiino loogu dhahdo marka luqadda Ingiriisiga la joogo iyadana waxaan isticmaali karnaa shantan qaab ama shantan phrase hak hoose noogu qoran waxaan ku oran karnaa bye marka si macasalaameeno qofkan ka tagano bye sidoo kale waxaan oran karnaa bye aynu ku oran karnaa qofkii markaynu si macasalaameeno aynu kasii tagayno aynu nabadgelyo ku leenahay waayahay waxaan sidoo kale oran karnaa oo aynu isticmaali karnaa mid kale oo informal ah oo aynu oran karno see you later oo la soo gaabiyada waa informal see you later ee looga jeeda waa inoo mar dambe yani waa inoo kula dambe ee looga jeeda waayo qofkii waa si nabadgelinaysan waa si macasalaamaysan waxaan sidoo kale isticmaali karnaa take care isilaali isjir yani qofkii saaxiibka ahaa ama qofkii aad walaalaha haydeen ayaad si kala tegayseen aad ku oran karto ama qofkii aad wada joogteen waqtiga wada qaatay markaad si kala tegayso aad ku oranayso take care ugu dambaysan arki doonaa waxa weeye sidoo kale inaad tiraahdo have a good one saaraha qofka wuxuu ku yiriba waan tegayaa waan hooyanayaa waxaad ku oranaysaa have a good one ama wax ku oranayaa waan qada tegayaa ama waxaan aadayaaba shaqadayda waan ku socdaa habsan baan have a good one ama qofkii ballan uu leeyahay buu qabanayaa marka waxaad ku si kala tegi kartaan inaad ku taado have a good one markaas waxaan filayaa inay ku anfici doonaan oo aad u isticmaali doonto marka aad hadlayso luqadda Ingiriisiga aad ku hadlayso marka aad ku darsato ereyada aad taqaano oo your bank vocabulary aad ku darsato oo aad isticmaasho ayaan rajaynayaa fadlan lagu xidhnow mar walba casharada noocaas aan soo gelinayna ka faa'iideyso oo aan ku aragno adigoo isticmaalaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh